هبل يا رير هبل واتكتك تين أدوكو صوماليا وحال مرة إنسان صوماليا أو كليا نينكي هو قرقرة هو سوقدك تواد دنبيلة قرن نينكي قرقرة أو صومالي لما هو سوقدك ما يمقل إنسان مركان هذا قريها تكتان وفسح الله يدسيه رير هبل وعاد وقيدين واتكتك تين واتكسر دابرتين بالرادب اللي يدوكو عليو وركاس هيا لنا صوماليا قرقر وزيري قاشاني قواكن لما سلاسة اللي يدي صور وين هيا هداد قبيل تيل ما اللي يدي صور وين لها قبيل هداد تيل اللي يدي ما صور وين وحال اللي يدي كو صور وين هيا وصومالي نمو يا قرن نمو يا تابر كات سوقاتين يا عالن كان استيلا دا سو استيلا دي ودنك عالنكي ودنك وكو سورياي قبيل دad kaanoo qurux badan meel isugu keeni kara ma jiro oo sida u labisan qarannimo isugu keeni karta qarannimadaas hoos uga dhicinina aad ku soo daabarteen annaguna waxaanu idinka ballan qaadaynaa haddii ilaahay yiraahdo haddii aad wadada ku joogtaan qarannimada xuquuqdiina qarannimo inaan ilaalino insha Allah marka ugu horeyso waxaan soo dhaweynayaa ciidamada gorgor oo maanta ku soo dogay boodka Muqdisho kuwaas oo ku soo tababartay dalka Turkiga tababar dheerna la soo siiyay sidii dalkooda diintooda u difaaci lahaayeen shacabkoodana ka difaaci lahaayeen cadow kasta waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa dawladda Turkiga oo mar kastaba nala garab taagan inay dhisto ciidamadeena xoogga dalka khaas ahaan ciidamada gorgor ciidamadaas oo maanta lagu dayin karo dalkeena Soomaaliyeed tababar khaasna soo qaatay waxaan leeyahay dawladda Turkiga iyo shacabkeeda iyo madaxdeedaba waa mahadsantihiin waxaan ugu mahadcelinayaa dadaalkaas anoo maanta ka mas'uul ah oo afkooda ku hadlayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha waxaan leeyahay dawladda Turkiga waa mahadsan tahay dalkeena dib u dhis ku jira waxa ugu muhiimsan oo la dhisana waa ciidan la'aan dawlad mihir gasho waxaan rabnaa dawladda Soomaaliya haddaan nahay inaan dhisno ciidan ilaaliyo dhulka badda iyo cirka cadowga ka ilaaliyo isla markaasna ilaaliyo muwaadiniinta Soomaaliya xuquuqdooda waajibaadkooda isay u gudan lahaayeen iyo cadow kasta oo ku soo xadgudbay uga ilaalin lahaayeen maalka iyo nafta muwaadiniinta ciidamada ilaalin lahayd baan dhisahaynaa waa sidii taliyaha u sheegay ciidamadan waa ciidamo qaran waa ciidamo isku dhafan waa ciidamo laga ilaaliyay xasaasiyad kasta laga ilaaliyay loo carbeeyay inay cadowga la dagaalamaan dalkana ilaaliyaan ku shaqeeyaan nidaam iyo kala dambeyn iyo dastuur iyo sharci inay ku shaqeeyaan marka aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta ciidamadan inay si nabad leh ku soo laabtaan oo dalkooda ay joogaan insha Allah waxaan rajaynaynaa kuwa kale inaan bixino ciidamadeena xoogga dalkana inaan dhisano
waxaan waxa ku nahay dalkeena waxaan waxa ku nahay ciidamadeena rumaysiga maanta aynan gambiyayo